waxyaabaha Soomaalidu ay ku dhaqmayaan ma u malaynayo meelaha la dhaho YouTube-ka oo kale iyo maanta waxa ka socda waa meesha ugu badan munaafaqada iyo beenta laga ururiyo beenta iyo munaafaqada laga samaynayo waxa igu daran waxa weeyaan nin weyn oo ummadaha ku xidhan yihiin kumaan kum ayaa wuxuu la soo fadhiisanayaa waa hordhac barnaamijka ma gelin ayaa wuxuu la soo fadhiisanayaa lacag baa la isiiyey waan diiday lacag baa la igu deeqay Cabdisamed walaal Cabdisalaam waan ku salaamayaa baan ku salaamayaa Khaliil adna waan ku salaamayaa lacag baan diiday oo la isiinay inaadero adigii baa lacag been ku sameynaya waxa laba eray baan leeyahay ragga waa weyn ee waxa ku dhaqmaya ee YouTuberada ah ina waxa magacaabo ma rabo waa dad ilmahaaga aad riyaal u been ka soo galay ama $1 oo been ka soo galay xaraan baad ilmahaaga ku korinaysaa waayo adigii oo been lacag kaga raadinaya YouTube adigii oo been iyo isku dir iyo munaafaqad kaga raadinaya YouTube lacag how adii dhahdaa lacagtii la ii ballan qaaday oo la yiri waxa ay dad samee ayaan diiday munaafaqad inta haddaan ka soo gudbo waxaan ka hadlayaa wiil habeen hore lagu dilay habeen bay tahay habeennimadii la soo dhaafay lagu dilay Nairobi Kenya wiilka waan aqaanay Somali React meel la dhaho ayaan ku bartay actor yacni dadka dhiirigelin jiray buu ahaa last adigu 5 years wiilkan waan aqaanay waan arki jiray mar badan meel waan isugu nimaadnay social media hasa ahaatee qof fiican buu ahaa wiilka wax xumaan oo saas ma ku arag qof iska furfuran buu ahaa anu laakiin wax kasta waan ogahay anu wax aan qarin ma jiro anigu ama igu nac ama igu diid xaqiiqada jirta waan sheegayaa marka waxa weeyaan yarkan lagu dilay Nairobi aad baan horta uga xumahay waayo qof islaam weeyaan qof Soomaaliya weeyaan qof walaalkeena weeyaan ama mistake ha sameeyo ama ha laga qaldanaado ama isagu ha qaldanaado marna dilitaankiisaas waa waxaan ku faraxsanahay ma aha waxaan ka xunnahay Allah ha u boogadhayo su'aalaha laakiin isweydiin mudan su'aalaha isweydiinta mudan waxa weeyaan wiilka shalay video soo duubay waxyar baan rabaa inaan isla fiirin ilmaha reeyaalow yacni waxyar baan rabaa inaan isla fiirino raali ahaada waxaan rabaa wax kasta cadaan bay cadaan inaan u wadaagno oo arrinta midmadow iyo wax kaga jiro aynu isula weydiino su'aalaha janiskiinana waan idin siin doonaa insha Allah okay telefonka iga dimi gaaray marka waxa weeyaan wiilka subaxii markii uu YouTube-kiisa soo gelinayay qaladaadkiisa iyo waxyaabaha uu sameynayay inaan isla aragnaan rabnaa wiilka walaalkeena kadib dilitaankiisa ayaan imanaynaa kadib yarkan Axmed Rashiid oo ku rafanayo qof walba uu soo qaadanayo hadalkiisa iyo wuxuu u yahay Axmed Rashiid ayaan dul istaagaynaa tagno yarkan walaalkeen ah subaxii marka uu soo galay YouTube-ka uu soo gelinayay uu hanjabayay uu aflagaadeynayay hooyo caayayay marna ani amaan kuma laha nin hooyo caaya agtayda nin hooyo caayay marna amaan ma kulaha agtayda aad buu qaldanaa inuu hooyo caado inuu aflagaadeeyo adigu walaasha ku baabayo haddii aadan balaaye abuur ahayn oodan dhibaato adigu cagahaaga ku doonanin maxaa subaxii annagu waan joognay YouTuberada dhan way joogeen way hadleen ninkan waan karbaashaynay daahira qaladkiisa waan sheegaynay inaad hanjabto dilitaan ku hanjabto ima waad nin dhahdo aflagaadeysa hooyo iyo dad aad caydo maxaa su'aalaha isweydiinta mudan maxaa kugu kalifay weeyaan maxaad annaga qabiil iyo tolo ayay ogaadeen baa ay dilay 8 nin ogaadeen ay dilay anaa isdilay anu waxaan u necbahay qof beenaala ah oo intuu dhibaatada haddii ani intuu gurigayga igu soo doonto oo isku dayo inuu dhibaato igu sameeyo aan iska celiyo qofka isagaa isdilay hadda yacni yaan tusaale usoo qaataa Faysal Cabdullaahi waan dhirbaaxan ku dhuftay indhaha mariyey ama candhuuf baan ku tufayba dhaqan xumaha noqotee mindibu dhuunta iga geliyey ma isagaa ninkaas anaad idabdarrada ku sameeyey oo la doontay mise isagaa igu sameeyey waa inaad idinku ii jawaabtaan
walaalkay intaas marka aan ka nimaadno aad subaxii aad hadallada aad samaynaysaa ya walaal waan soo qaban aan dhamaysta hadalkayga barnaamijka sii faafiya insha Allah haddii subaxii marka aan jabaysay boqolaal qof baa ka soo hadlay daahir oo lahaa walaalo yacni qofka dhibaatada lama abuuro laakiin xal baa la raadiyaa walaal daahir waad qaldan tahay oo wiilkan yar iska daa waxaad ku samayn kartaa ku samaysay iska daa war hadduu adigana Axmed Rashiid u baaswood iyo ciwaan iyo wax uu kaa qaaday walaal cadayntii baan u baahannahay wixii run ah xaqiiqo baan u baahannahay annaga marka Axmed Rashiid kabta uu gashada aan gelina laakiin haddii aad ganacsata ku soo adeegsanayso dadkii Soomaaliya iyo Puntland iyo meel walba soo heliga ay ku soo adeegsanayaan oo rabto inaad khalkhalka Nairobi aad khalkhal geliso nabadgelyada Nairobi inaad khalkhal geliso saaxiib Kenyaatigu bartaaninka Axmed Rashiid ka tooganay kuwii gaangiiska ahaaba halka ka tooganay haddii aad adiga oo khalkhal gelinaya oo dhibaato sameynaya oo suuqa YouTube-yada soo gelinaya anaa ku dilaya anaa waxa kugu sameynaya anaa aabahaya tan taliyay xildhibaan hebel anaa xuquuq wala aad leedahay de khalkhal baad gelinaysaa xaqiiqda dhabta haddii aan wadan kale maanta ku noolaan lahaa ha cabsi way galleed laakiin meeshaan aan ku noolahay cid aan kaga cabsoonahay malahan ama cid iga xigta malahan ka madaxweynaha baarlamaanka ku jira hata waxaan aaminsanahay inaan aniga wadani kaga ahay walaal shaku baaba dhibaatada laba mid weeyaan marka adigu kow waa inaad taa aaminto horta marka hore waxba nin dibad jooga oo YouTube lacag kugu raadsanaya ha u beer la hawsanin nin riyaal kugu raadsanaya YouTube ku jira oo raba inuu lacag kugu helo le ala talaay Soomaaliyeey nin gobaan ahaan jiray binta way xasay sameeyay jirtay hadal intuu soo qaadsada kugu beer la hawsanaya waxa been ku sheegin nin noloshiisa wataadahay inaad gabadh qabto waan ognahay waxa adigu tahay hadii gabadh ku diraysana saaxib rag inay ku dirta ma ahayn ku dilayay rag aad iska celin kartaa inay ku dirtay ahay waan ogahay inaad gabadh qabto waan ogahay in ilmaadiriin gabadh aad qabtiyo sharma booy ma jecel inaan gabdhaha ka hadlo in arrintu gabadh soo gashay ma jecel laakiin anu runtaan sheegaya shaku baaba dhibaatada waxa u geysanaya ee meesha gelinaya sheegaya anu tahay cali soo ilmaadir ma tihiin sharma booy ilmaadir ma tihiin Soomaalinimo hadaad ugu heelinaysa kana Soomaalinimo inaad wax ugu sheegtay ahay inaad odaynimo wax ugu sheegtay ahay oo dhahda war daahir oo oday baa tahay nin saasa tahay waxaan jooji laakiin aad hanjabto dhahda kanaan ahay waxaan ahay dhalinyar kale aflagaadiso dhahda hunguriba waxa u sameynayaan konton baa loo soo diray dhalinyar waxaan arkay inay isbahaysteen funaanad lacag $50 in loo diray funaanad oo magac iyo sawir qiimo lahayn lagu buufiyay in loo wada xiraa la leeyahay meelaha ay istaaga walaalo adigu waa qaldanay totally videoga aad duubtay wuu qaldanaa waana ka ku dilay waxa ku geeyayna naagta aad qabtay gabadha aad qabtay inay ka dambeysay weeyaan laakiin adigu amarta ma ahayn in adigu waxa sameey ku dhaxda ma ahayn marwaad qabtaa waa gabadh sharaf leh gabadha Maryan oo xsaab aan maanaya in la dhaho YouTube ku isticmaasho laakiin adiga walaal inay gabadhii ay ku isticmaasho oo ku dirto oo ku dhahday shar maana ilmaadeernahay daahir cali soo u hanjab aflagaade anigu runta saaxiib wax kasta ani waan la socdaa ani inaan aamusnaado roon laakiin haddaan hadlo waxa ma qariyo inaan aamusnaado ayaa roon haddaan hadlo xaqiiqada jirta wiilka wuxuu u dhintay isaga yani ayaan idin sheegaya dhabta rag dhar qado ciidana isaga doontay wiilku marka dagaalkiisa aanu nimaadno fiidiyoogii iyo wixii ku kalifay iyo dhibaatada meesha ka timid iyo waxa soo dhan waan idin soo sheegay gabadh baa meesha ku jirta inuu shaku baaba dhibaatadan sameeyo arrin gabdheed iyo kac waxaan sameey iyo amar lagu amray ahayd kadib inuu dagaalkani dhaco oo wiilka sidan u dhaco isaga doontay sheekadan idin hay waxa horta aan iskiin baro aniga waxaa la yiraahdaa Maxamed Aamin Yaxye Buule cid aan ka baqaayana maanta malahan waxaan ku noolahay aan joogaa wadankii xudunteeda ku dugan tahay Kenya waxaana aaminsanahay inay cid wax iga qaadi karto aysan jirin aan halka yar ka falcelina marka aan isla socono marka wiilkani marka uu leeyahay cid wax iga qaadi kartaa ma jirto Kenyan deganahay waa intuna dagaalkani dhicin marka yuu la dagaalamaya marka wiilku su'aash ina isweydiino mudan marka tan weeyaan haddii ayna wax kale jirin oo isagu una wax ka soo dhex guuxaynin una isagu dhibaato abuurin shaku baaba maxaa marka kalifa inuu sidan u sii hadlo
kugu soo foodhayaan way kugu soo socdaan ilmaadeerayaalow lama gardarnaado ilmaadeerayaalow munaafaqad iyo cudur iyo qabiil lama hor ordo qofku hadduu dhintay uu qaldan yahay wuu qaldanaa baa la dhahaa wiil kali wuu qaldanaa muxuu yidhi waxyaabo badan baa kugu soo foodi okay maxaa igu soo foodla marka isagu dhibaato ma abuurini marka miya rag dhar qadaho ciidan isku doontay marka suga marka waan idin soo wadaa marka waxa ku taageersan waa waxaas intuu aflagaadeeyay marka haddana wiilku wuxuu markuu dagaalka sameynayay isagaa doontay mindibadooda taabaa la yidhi sidaas ugu qabteen rag dhar cad uu doontay oo damca inuu dhib ku sameeyo waa saan anigu warka u maqlay raggaas dhar cadka ah isagana way isku jebiyeen way garaaceen gaadhi baa la igu qaatay iyo waa ogaadeen iyo rag ciidana weeyaan ninka raggan dilay ninka ragga dilay rag ciidan ah oo dhar cad ah iyo isku doontay welibana iyaga oo isaga oo wax uu sameynayay la ogyahay haddana isku sii doonto isagu uu damca inuu dhibaateeyo kadibna waa la dilay caddayn baan idiin sheegayaa qof la dilay oo sidan loo galay haddayna ciidan aynay sidan u gelin dee sax dhakhtar buu aadi lahaa ma youtube baa dhakhtarku marka ma gurigiisaa dhakhtara ma youtube kaa dhakhtara balastar yar xitaa ma saaree marka ilmaadeerayaalow waxaad garataan sheekada yacni dhanka raran ee farsamaysan iyo waxa dhabtaa hal mid baan ku leeyahay xaaskaaga waa in aad isu hoggaansantaan gabadhaadu inay dad dhibaataya wax ku horseeda ma aha inay markaa dhibaato samaynaysa ku dejiso weeyaan ay ku dhahda sidaas ma aha xaalku ka daa ka joog xal raadi soomaalinimo wax ku dhammee walaaltinimo wax ku dhammee laakiin inay ku dhahdo hooga in adeerkii weeyaan soo dil ama waxa u samee no I don't believe that intaa nin eed sheegaysa oo ogaadeyni ay dulmi isku raacayaan oo adiga ay ku dilayaan ma iga dhaadhacaysa walaalow weligeyna ma aaminayo afka hadal iyo gacan ka hadal walaal carafa thank you last night baan soo galay anagu haddii horta beesh ogaadeen nahay af ma ka hadalaba anagu gacan baan ka hadalaa waa idiin sheegay ama doqomaatiina dhahan fariidaatiin af ma ka hadala gacan bas aan ka hadalaa dadka meelaha ka boodbootaya booga waan ku waraa waan ku dilaa no dabeecaddaa melihin anagu aan kala baxna bes aan kala dhamaana ama idil ama aan ku dilo laakiin in googaradaha dumarka iyo aflagaadeyn iyo waxa in lagu socdo dhaqanka naga ma aha ta kale meesha taala axmed rashiid baa dad sa ugu wareegaysanayaan oo youtube lacag kaga samaynayaan axmed rashiid ma u malaynayo in uu baahan yahay qof difaaca inuu u baahan yahay qof qaaya inuu u baahan yahay qof meelaha jiijiida wax alla yaala wax uu u baahan yahay duca iyo habaar midna ma jiro hooyooyin baa ku seexday Soomaaliyeed gabdha Soomaaliyeed baa ku seexday ciyaal Soomaaliyeed baa ku seexday gabadha waqtigii uu yacni gaangiiska iyo balaayadii iyo China group uu leeynayay waryaahe maamooyinka dukaanka mayna furan jirin wallahi waxaa la ii sheegay in iskuulka ardaydu ayna aadi jirin oo maamo ooysa igu tiri ninkaas markuu iskuulka ay gabadhaydu ka timaado xaafad bay tagi jirtay xaafadaasaan ugu tagi jiray markaan waqti helo marka adiga oo wadan dalkeeni soo rogay oo ummadii soo haligay oo dalkeeni futagambiyay haddaad rabto inaad Nairobi aad futa rogto walaalow dhib baa ku qabsan qalad baanad samayn ka qaylqaylina pointiga kale in rabeenaan ka hadlo waxa weeyaan axmed rashiid markii hore ma ka qayb horta ma aha ciidanka ma aha ka hawlgala Nairobi gudaheeda ma aha waa loo yeeraa markii hore markay xaaladu soo noqotay baa loo yeeray talaabo qaaday 5 jeer buu ilmaha u digaa u dhaha hooyada u geeya ilmahaaga qabso 5 jeer markuu ilmaha uu meelaha gaangiiska iyo dadka lagu dhiciyo waxa ku arko uu intaba u geeyo marlixaad kama weydiiyo baf buu ka siinay uu dilay abnaawna waa sidii waqtigana waa sidii hadda markii ay soo laba noqdeen markii magaciisii yar baxay waa aragtay Mareykan hay'adda xuquuq